وإبراهيم وين أني كمان شلة ما نيشر حاله لكن اللي ما أعرف كان أبيض سوق بنا ده كيسي دو حق سلمان هتاكل سوق بنا very nice ككلام دقيقة عمود لي هاي كا نسيت مليونيوم هوتيل نوكاسي لكن كان جوجنا كعصريسن magaalada qaybtaana halka la xisiid badin waan soo jeedaa xisiid dawladeed xanaano xisiid dawladeed xaafadda ka dambeysana waa xaafadaha dawlad sasan way wasqatay 5 minutes bas qadada ka dhacay عمود هوتيل سوقي نواكنا maanta waa xaween waa maalin sabtiya bisha 13 December 2014 waxaan joognaa jigjiga waxaan dul joognaa fooq ugu sareeya ee hotelka Amuud waxaan la joognaa Ibrahim magacaaga saddexan halkaad ku dhalatay iyo taariikhdaada yar hore in yar naga taataa magacayga saddexan waa Ibrahim Maxamuud Aare waxaan ku dhashay magaaladan aan hadda joognay jigjiga badana noloshaydii intii hore waxaan ku soo qaatay magaalada Boorame intii dambana magaalada hadda aan joogay jigjiga iskuulkaagii hoose dhexe iyo iskuulkaygii hoose dhexe waxaan ku dhigtay magaalada Boorame dugsiga Xawataako dugsigii sare waxaan ku dhameeyay magaalada jigjiga masha Allah waxaan Ibrahim ku weydiin doonaa dhowr su'aalo oo inamo magaalada Birmingham degan ay soo diyaarsadeen marka ugu horeysa su'aasha ugu horeysa waxa weeyaan jigjiga hoteeladu maxay ugu badan yihiin waa koow ma damaan baa jira ma dalab baa jira mise dadkaas ku dayanaya maya horta dalab waa jira oo magaalada jigjiga waxay ku taallaa meel istiraatiiji ah oo u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya ganacsi ballaaran waa ka jira martiduna aad bay ugu badan yihiin marka hotelku isku dayasho uma badna laakiin dhimaanka ayaa salku haya jazakallah inaka su'aasha si wata wuxuu yiri haddaan doonayo inaan dhisto hotel 5 dabaqa maxay lacagtu ilaayo imisa $1,000 baad ku qiyaasi kartaa wallahi horta hotelka aad dhisaysid waxay ku xiran tahay standardka aad rabtid inaad dhisatid iyo maxaa ahayd area-da hotelku ku fadhiyana way ku xiran tahay inta meter square uu hotelku macnaa uu ku fadhiisan karo inta qoleed uga baahan tahay qolalkaagu noocyada uu noqon doono marka qiimo go'an oo fixed oo macnaa aan hadda sheegi karaa ma jirto
جزاك الله. سؤال saddexaad waxa weeyaan hoteeladu ma profitable ma macaash bay leeyihiin waayo suuqyada kale waxaad aad uga furan weyday mise ku leedahayba suuqyada kale horta hoteelka iyagu waa hotel hore aan u lahayn marka hoteelkii waxaa lagu sameeyey in dib u dhis lagu sameeyo profitable way jiraan waxyaalo kale oo profitable ah sida agriculture-ka iyo xoolaha haddii aad lacag haysatid oo investment ku samaysid aad ka faa'iidi kartid oo hoteelkana kana degdeg badan inkastoo magaalada Jigjiga ay ku yaalaan hadda hoteelo fara badan lama dhihi karo micna hadda faa'iido badan ayay leeyihiin because waqti ayay ku xidhay moogta samarka iyo xilliyo shirar jiraan hoteelada laga yaabaa in aad laga faa'iido laakiin xilliyo waqtiyo badan oo waxa jira ay faaruq yihiin waa jiraan jazakallah hoteelka ugu casriyaysan Jigjiga imsa habeenka lagu seexdaa qiyaas ahaan magaalada horta hotel standard lagu sheegi karaa oo facility kasta leh ilaa hadda lagama dhisin laakiin hoteelada qaarkood kuwa hadda waa ugu wanaagsan yihiin la dhaho 400 500 waa lagu seexdaa insha Allah kaayaguna kuwaas ayuu la mid noqon doonaa marka kan maanta aan soo sawirnay waa kuwii ugu sareeyay oo ayuu galaya marhaba taxka dawladda cashuuraha ugu muhiimsan aad bixisiin dadka hoteelada leh maxay yihiin waxaan u bixinaa horta hadii laba cashuurood oo mid waxa weeye VAT value added tax oo beer individual ka saxda maxaa daily lagu soo dalaco oo aanu beer maanta aan ku bixino iyo tii kale ahayd maxay ahayd turnover taxigii sanad cashuureedka marka labada cashuurood baan bixinaa jazakallah su'aasha lixaad waxa weeyaan business kalamad ku leedahay Jigjiga partnersna ma leedahay mise waa kali waxaad u shaqaysaa business kale waanu leenahay laakiin business kale waa business family waxaanu leenahay company kale oo la yiraahdo Amud Construction oo qandaraasyada especially government-ga ayaanu qaadanaa oo heer federal iyo heer local states marka business ka kalena waanu ku jirnaa laakiin partners wali ma gaari limited okay su'aasha kale waxa weeyaan waa degdeg baan mala su'aashan qof dibadda ana u dhalan deegaanka dawladda investment ku sameynaya ma loo ogol yahay ma loo ogol yahay laba dawladdu loan ma siin kartaa horta laba shay baa jira hadduu qofku horta Soomaali yahay automatically wuxuu iska xisaabsan yahay qof loo kala foreign-ka badan waxaan u naqaanaa qof ajnabi oo kale laakiin hadduu qofka Soomaali yahay ama deegaanka u dhashado ama meel kale ba ku laakiin Soomaali ahaan baa loo tixgelin government loans waa jiraan laakiin procedures iyo waxa jira ma ogtahay system de loan ka loo qaadan karo taas waxay u baahan tahay inaanu xeerarkii ay federaalku loans ka u dhigeen dib loogu noqdo jazakallah halkaasaan ku joojinaya waa waraysigii Ibrahim la watay Ibrahim anjiradan waxaan u duubayaa qaybtan waa qaybtii u gaarka ahayd gadabuursiga deegaanka marka Ibrahim adigu ma sharax gadabuursiga maxaad ka sii tahay deegaanka oo reerka aabaha awooyaashaada ay degnaan jireen horta way igu yar adag tahay inaan maxnaa qabiilkayga aan kaamero kaga hadlo laakiin hadda su'aasha weydiisay waxaan ahay nin gadabuursiya Makahila kana Bahar Abdullah deegaankayaguna waa Dambal Arabi Sheekh Nabadgelyo goobti macna deegaanka Harawa qaybta aan Ciisa Ajarkanahay qabiilada deegaanka qabiil kamid ah ma tiidado Bahar Abdullah gabiilay wajaaliya deegaamatiis waaya galbeedka Bahar Abdullah galbeedka mati waxa igu maqaalaa Ibrahim ina raabtiga yihiin reeharar saxba mataabuma aniga hooyaday harar way ku dhasheen laakiin raabtiga aniga waa Jibril Bakar oo qabiilkiisa jazakallah waxaan nooga warantaa Ibrahim gadabuursiga Jigjiga degan
baaxadiisu maxaad u malaysaa intee leegyihiin dadbursiga magaalada jigjiga deganay way fara badan yihiin because jigjiga anu waxaan u arkaa inaanu ay tahay degaan dadka dadbursigu uu leeyahay maadaama aanu degaankeenu u dhow yahay macna jigjiga waa meel aynu leenahay maahan meel aynu dadkeenu yimid maaha ama dad meel fog ka yimid maaha waa dhul aynu leenahay horena waynu deganaan jirnay haddana waanu deganahay macna waa jigjiga ninka dadbursiga jooga iyo ninka boorama jooga almost waa same because waa degaankeeni meel ka mid ah jazakallah waxaan ku weydiiyey hodheelada waaweyn iminka kaagaaga waan soo waranay millennium amuud waan joognaa kuwa kale jira bal iga warram waa kuwii weyn magaalada dhowr hotel baan horta ku leenahay oo hotelkan haddaanu dhex joognay amuud iyo hotelkaad adigu deganayd ee millennium hotel iyo hotel kale oo master hotel la yidhaah iyo hotel kalena waa jiraa oo yar ma xuma intii qabiil ahaan aanu yeelan karayna waanu leenahay albeerka cali gurays dheeraadna way jirtaa kale halkaa kalena way jirtaa way jiraan laakiin waa kuwa yar yara laakiin kuwa hadda jiray caanka ee dadku badan ay magac ahaan u yaqaaniin kuwa su-aasha inaynu meesha soo dhex dhigtay waxa weeyaan connectionka bursiga halkan businesskan dee magaalada degana businessmanka ma leedihiin xidhiidh ma leedihiin shirar aada iskula kulantiin oo tidhaahdeen maxaan isku darsan karnaa customerka markuu master buuxsamo inuu adiga kuusoo tabiyo ma leedihiin shirar iyo xidhiidh ma leedihiin horta dhibaatada ugu badan ee reerkeena qabiil ahaan gadbursiga haystaa waxa weeye sida qabiilada kale ee Soomaalida ah relationship iyo shirar ma lihin waa dad individual u nool sometimes waxaa saaran kartaa dhaqanka westernka inuu ka soo aanu la dhaqanahay waxaa laga yaabaa inaanu qofka gadbursi reero gadbursi oo la jaara unan aqoon xiriir ganacsi oo macna dadka gadbursi inta isugu yimaadeen ay ka wada hadlaan ama shareholders intay sameeysan ganacsi ay wada abuuraan ma jirto because waxa sababay dadkan culture ahaan baynu macna individual aan u noolnahay marka waa loo baahan yahay inay dadku macna aynu sameysano inaynu xiriir sameysano because diiniyan iyo dhaqan Soomaaliba waa waajib waxyaalaha macna dhibta inoo keenay hada jeer aanu dadkeenu lagu dhaleeceeyo madaxdiina waxa kamid ah kali noolaashay kaligood noolyihiin aynan macna business ahaan iyo xiriir kale ayna wadaagin marka waxa leedahay hay'ad amba dallad baa mushtarkiina isku timaadiin waa meel maran wali way banaan tahay dallad ina isku timaadiin ganacsi ahaan kama hadlayo qabiil ahaan xataa malihin moogtay markaad qabiil ahaan wixii base aynu u leenahay ayuu ganacsiguna oo soo raacay oo dadku inay ganacsiga isku darsadaan xilligaas ayman laakiin hadda waqtigan hadda aynu joogno in dhaqaale qof shakhsi uu macna abuuray waa wax macna ama dhisayso waayo waa in dhaqaalaha la isku darsado si macna dhaqaalaha dadku ay haystaan aynu la tartano aynu u sameeyno dhaqaale xoogan saynu dadka kale ee ummadaha kale ama Ethiopia ba noqoto ama Soomaalida kale ba noqoto saynu uga harin waa inaynu dhaqaalaha intaynu isku darsano company shareholders aynu sameysano oo especially agriculture ko kale investment aynu ku sameyno oo aynu ka faa'iideysano because meeshaas waa meel dadku aynan wali Soomaalidu waxay hadii jeer xiiseeyaan shaqooyinka profitable degdeg qofku profitka uga helo laakiin tan investment-kan time buu qaadan laakiin waa meelaha kaliya hadda macna loo baahan yahay in investment lagu sameeyo si aynu macna aynu faa'iid joogto ah oo aad u wanaagsan si aynu uga helo jazakallah Ibrahim waxaad iga warantaa birigii waxaad ku jirtay raggii aad ku soo dhaweeyay ugaaska iminkaan soo ziyaartay jigjiga dhinaca ka degan baaxadda intee leekad markaad soo dhaweynaysid berigaasi macna uga waran baaxaddu aad bay ballaarnayd oo waayo dadka magaalada degan maadaama aad fara badan yihiin si cajiib aynu soo dhaweynay
inkastoo hadda isleeyahay marka xiisii aan u qabnay ugaaska iyo sidaan u soo dhaweynay iyo hadda xaaladda jirta ay kala duwan yihiin oo macna xaaladii aan markaa ku soo dhaweynay waxaan filaynay in hawshu hore u sii socoto laakiin hadda topic aan ka hadlayay inuu dib ugu noqon topicaas oo ah qofka gadabuursiga wuxuu noqday inuu individual keligii noolaado oo xataa ugaaskooga iyo ayna garab gelin macna si strong u noqdo waa inuu bulsho haystaa isku xidhan marka dhibaatadaas wayna haysataa weli dadka dibadaha ku nool kulle iyagu waxa quraata ay faa'iido leeyihiin xaga baxalkan u yimaadaan amba dee lacaga yaro isku yar ururiyaan ay dadka ay dee u soo gaadhsiiyaan maxaad fariin u diri lahayd ku saabsan dee gadabuursi ahaaneed iyo isku imaasho iyo wadajirka gadabuursi si loo xoojin lahaa fariin maxaa u diri lahayd waxaan fariin u diri lahaa maadaama iyagu wadamo macna dhaqaale ahaan iyo culture ahaan iyo cilmi ahaanba horumaray ay degan yihiin oo inay horta dadka halkaa degan ay macluumaadkooga already hayaan macluumaadkaas ay noo soo qaadaan oo noo keenaan oo ay abuuraan macna dad isku xidhan oo shareholderisa oo lacagahooga safe garaysta waddankoogana ay yimaadiin hadda oo ay ka faa'iidaystaan because Africa waa meelaha kaliya hadda dhaqaale uu qofku ka abuuri karo waa adduunyada kale markaad tagtid shay kasta oo ka fikirtid oo sameey tiraadid ama abuur tiraadid already waa la sameeyay waa already wax leeyahay laakiin Africa kun shay oo ka fikirtid oo haddaad ku dhaqaaqdid aad ka faa'iidaysan kartid baa jira lacagaad dhulka ka heshiin muddo gaaban oo aad u gaaban oo aad ku sameyn kartiin haddii aad Africa la timaadiin inagoo oo micna business plan haysta inaad iska timaadid oo wax iska igdaabatid business plan waa inaad la timaadaa wax haddii aad haysatid investment aad ku samaysaa haddaad aqli haysatidna aqligaaga aad invest garaysaa oo cilmigaaga aad investment ku samaysaa oo meeshii aad u dhalatay aad investment ku samaysaa waxa laga yaabaa dad badan oo dhulkii aad ku dhalatay ee miyiga ah inaad u tagi kartid haddaad cilmi agriculture taqaanid dad uma baahna inaad capital un haysatid waa inaad dadka abaabushaa aad isku xidhaa dhul yar ayaad waxaad ka soo saari kartaa wax soo saar fara badan Ibrahim waxaad xasuusisay su'aasha ugu dambeysay ahayd su'aal kale baa imika ugu soo dhacday waxaad nooga warantaa nacam siday degdeg xaaladdu isku bedelaysa Ethiopia mar waxaad iga tiri adiis waxaan ka iibsaday dhul dhowr sano imika intaas uu jooga jigjiga in baan ka iibsaday maanta intaas uu jooga bal nooga waran ona meelaha yare bal dadka u taabo oo xaqiiqo ay jirtaa horta Ethiopia markaad joogtid waxa ka jira shortage guryaha marka qofka hadii uu dhul iyo guryaba investment ku sameeyo oo lacagtiisa haduu macnaheedu in sida ay bankiska oo leeyahay haduu la shaqo ku hay uu guryo geliyo ama uu dhul geliyo lacagtiisaasi muddo gaaban lacag boqolkiiba 30 ilaa 40 waa ka faa'iidi karaa sanadka gudihiisa sanad mise laba sano labadii sano gudood uu ka faa'iidi karaa waa meelaha ugu faa'iidada badan laakiin meelaha faa'iidka ugu xoogan laga heli karo waxa ka mid ah agriculture-ka waa meesha kaliya ee dhammaanka ugu weyn uu ka jiro local ahaan iyo internationally-ba marka qofku hadduu agriculture time bay qaadan uu investment ku sameeyo agriculture kan international ko ay isticmaalaan oo deegaankiisa uu ka samaysto waayo kaas deegaankeena waa strategy waxa production-ka deegaankaaga aad ka soo saartay Ethiopia waa u iibgeyn kartaa Somaliland waa u iibgeyn kartaa Djibouti waa u iibgeyn kartaa haddaad macna waa chance fiican moogta hatta waxaad isticmaali kartaa haddii aad sida flowerska ama strawberry-ga beero noocaas aynu samayno maadaama magaalada Jigjiga ay leedahay international airport hadda laga sameeyay hatta yar waynu dhoofin karnaa waxay ku xidhan tahay inuu waxyaalaha noocaas si oo macna wanaagsan haddaynu agriculture u samayno waa so easy in Ethiopia laga dhoofiyo Europe-na loo dhoofin karo because Ethiopian airline Jigjiga airport haddii aad cargo-yo noocaas aynu haysano any place adduunka way noo geyn kartaa oo market aynu haysano waxay ugu maqaalaan inuu cargo-ga
jigjiga inuu shaqeyn passenger ku ba shaqeeyay kaargo ma la bilaabay of course waa waxa waxay ku xidhan tahay cargo ma jiro wax cargo maadaama uu jirin haddii laakiin uu jiro oo warshad hilib oo kale inta la furo hilib fresh ah daily aan halkan inta laga qaado Dubai oo kale loo dhoofiyo Ethiopian Airlines diyaaraddu way ka kareynaysaa way imanaysaa waxa ugu weyn ugu muhiimsan waa infrastructure maadaama uu jigjiga ku yaalo diyaaraddu inay timaado oo ay qaado wax micnaa ma dhisayso waa adeeg ku xidhan tahay jazakallahu Ibrahim waa ma santa okay